wuxuu yidhi nolosheenna waxay bilaabatay annagoon is aqoonin waxaana ku kala dhalanay meelo kala fog weligeennana ismaanan arkin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. mar kale iyo ku soo dhowaada sahanka qisooyinka. qiso jacayl oo faa'iido badan. wuxuu yidhi nolosheenna waxay bilaabatay annagoon is aqoonin waxaana ku kala dhalanay meelo kala fog weligeennana ismaanan arkin, balse awoodda allah ayaa adduunyadan inagu kulmisay. aragtidayda way ku faraxday, anigana sidoo kale aad baan ugu farxay. ka helitaan iyo jacayl fara badan kadib waxaan go'aan ku gaarnay inaan isguursano oo aan mid noqonnaa. haddaba waxaa muhiim ah noloshaas dhabta ah micnaheeda inaan wada garanno. guurka kadib waxaa imaan kara waxaan u baahannahay waa inuusan fashilmin guurkeenna iyo ballanta aan allah la galnay oo ah inaan isku baari noqonnaa. guurka maalinta uu dhacayo dadka oo dhammi waa ay faraxsan yihiin, balse aniga waan murugaysanahay oo waxaa la i saaray mas-uuliyad aad u weyn oo ah qof aniga nafsadayda oo kale leh inaan u ahay adeege. waxaa waajib igu ah inaan meel saaraa waxaad xidhan lahayd, waxaad cuni lahayd iyo wax walba oo farxaddaada ku xidhan tahay. taasna aad ayay u adag tahay, waana midda badanaa ay ku fashilmaan ragga qaar. waxaa ii furan hal wadda oo ah inaan kaa dhigtaa xigaal sida indhahayga oo kale ah oo aan wax ku arko. middaas oo ka dhigan inaan ahay ruux aan la'aantaa shaqayn karin, sababtoo ah indha la'aan lama shaqayn karo. waxaan u baahannahay 4 waxyaabood inaan helnaa: sabar, go'aan adag, naxariis iyo xal oo aan wax walba isla xalinaa. sabar waa inaan kuu sabraa marka aad dhibaataysan tahay, sida marka aad uurka leedahay, marka aad xanaaqsan tahay. adiga waa inaad ii sabartaa xilliyada aan murugaysanahay ama aan xanaaqsanahay, si dhexdeenna uusan u imaanin khilaaf. go'aan waa inuu go'aankeennu ahaado mid aan ku burburayn si fudud. go'aankeenna wuxuu noqon doonaa inaanan kala tegin ilaa geerida na kala geyso mooye. naxariis waa inaan isku naxariisanaa si allah uu inoogu naxariisto, khaasatan marka aad xanuunsan tahay. marka aan labadeenna xaaladaha dhiban ku jirno waa inaan isdareensiinaa naxariis, taasoo ka dhigan jacayl aad u weyn inaan isu qabno. xal waa inaan xallinaa wax walba oo xumaan ah oo dhexdeenna ama familkeenna soo dhex galo si wadajir ah oo caqli ku dheehan yahay, si aan u ilaashano mustaqbalka ifaayo. waxaa maalinkaas guurkeenna ah kuu ballanqaadayaa inaan kuu noqonayo sidii qayb jirkaaga ka mid ah oo aan kaa maarmin, adigana aadan ka maarmi karin. nolosheenna waxaa muhiim inoo ah farxad iyo inaan isku qanacsannahay. waxaa kaloo muhiim ah waalidkana dhalay ee intaana soo gaarsiiyey waa inaan ku dadaalnaa farxaddooda oo daqiiqad walba madaxa ay inoo saarnaadaan si aan u helno carruur baari ah. hooyaday waa sida hooyadaa oo kale, waalidkana waa inaan u noqonnaa sida diinta islaamka ay ina bartay. waana hubaa inaan ka soo baxayno oo aanan dayici doonin insha allah. dhabtii hadafka aad nolosha ka leedahay waan kugu garab istaagi doonaa si aad u soo taabato meesha aad hiigsanaysid. anigana ma dhaqaaqi karo la'aanta, waa inaan gacmaha isqabsanaa si aan u jebinaa derbiga ku xeendaaban waddada mustaqbalkeenna. waxaa ii muuqda nolol iftiimaysa iyo guri aad u qurux badan oo hooyo qurux badan dhex joogto iyo aabbe aad bashaash u ah, kuwaas oo gacmaha ka haayo carruur indhahaaga ay la dhacayaan, afkooda aanan ka soo baxaynin hadal xumaan ah ilaa wanaag maahine. subaxii salaada ayaan kuu kicin doonaa, markaan tukannana waxaan u cararayaa shaqada aniga oo hamigaygu yahay inaan familkayga taageero. inta aan shaqada ku jiro haddii aan helaa fursad yar waan ku soo wici doonaa aniga oo rabo inaan xaaladda gurigayga ogaado. markii aan shaqada ka imaada waa inaan ku saacidaa si wixii loo baahan yahay aan u dhammaystiraa. muddo kadib carruurta quruxda badan ee aan wada dhalnaa ee dhinac adiga kaaga eg dhinacna aniga iiga eg ayaa u ballanqaadi doonaa si wadajir ah inaan tarbiyadooda iyo farxaddooda ka shaqaynaa. labadeenna qofkii fursad u helaa carruurtaas inuu ku dadaalo si berrito aan u helnaa kuwo aan ku harsano. haddii ay ku cajabisay qisadan, fadlan subscribe saar janalka, gambaleelkana furo si aad ula socoto qisooyinka xiga.